ibnu aadam markuu ka tago adduunyadan oo uu wareego wax maalkiisa oo anfacayo maleh wax ehelkiisa oo anfacayo maleh ilaa ehelka inay ku anfacaan ducay u duceynayaan iyo sadaqay u bixinayaan mooyaan maalka anfacayo waa wixii uu hormarsaday wax kale oo anfacayo maleh wax alaala wixii gawaarida ahaa wixii daaro ahaa wixii asiga khaas ahaan ugu labisnaa wixii dharkiisa ahaa oo gurigiisa khaaska wixii yaalay ahaa maracayaan mana anfacayaan halkaas bay ugu harayaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu oranayaa yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun إلا من أتى الله بقلب سليم ومال أيسن أنفعين مال يعرور إلا مال تاسي وحترى أنفع وقف الله سبحانه وتعالى أوسيي قلب السليم أو كبد بادي قال نمو النفاق إيو الذل نمو انتبه الله سبحانه وتعالى سيدوك لوحي أرانيا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وحانوتي ماذين إذنكو كلي سيدي مركي هور كلي لإذين أبوري أو كلي أدو أهذين أيا إذنكو كلي أهنوتي ماذين وحي أد إنسيني قدال بعد أغصوه تقذين وتركتم ما خولناكم وحي على إنسيني أو نعموينكي الدنيا أها قدال بعد أغصو تقذين وحانا ما ينتياسي نوتي ماذين إذنكو درلا عقلا بيجق بيالا أو معوضة أما معيينا آنان أهين شيء wax uu gargaarayo oo uu nasrinayo maalintaasi oo Allah subhanahu wa ta'ala ka celinayo idan walaaliyaal safar dheer baa la qaabilayaa sahayduna way yartahay meeshuna meel ciyaar lagu dhamaanayo ma ahan safarkaas dheer oo muhiimka ah oo nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inoo sheegay haduu qofka uu dhinto inuu amalkiisa uu go'ayo ilaa 3 arimood ma ahane sadaqatin jaariya أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية ومساجداس ومدارستاس وعالش وقفك وحيابها عامك أو قفك الله سبحانه وتعالى درتي وصدق سنة إيو علمي نافع برتي برين أمد كلاسي بريسو إيو ولد صالح oo uu soo duceynayo wadka saalix waa midka baariga oo labadiisa waalid adeecayo una taagan arimahooda hada huwa walad salih marka walaalayaal waxaa noo muhiim inaynu isxasuusino maalintaas